بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحابتي soo dhawaada maanta waxaan wada oodkac meesha waxa igu jira hilibka oodkaca subag ari oo subag lo waaye subag lo saafiya waaye subag bambaas in laga keenaa ku qoran waxa meesha igu jira heel iyo joyce isku soo shiiday cusbo iyo filfil subag yaa ku soo shubanaya digsiga subagan waxaan ku soo rirtay saddex xabood laba xabood tuun xabadan kala gooyay waaye laba xabood tuun tuntu waxay kuu saxaysaa dhadhanka hilibka shiirkiisa dhan way dilaysaa qudaar hilibka carafta waxay soo saaraysaa heelka iyo hilibka si fiican dhadhanka u soo bixisaa insha Allah ka faa'iideysta inta aqoonin saliidana markay karkartaa oodkac hadaa ku shubato oodkac ma ka burburaa wuxuu ku noqonaa oodkac taagan oo bisil oo kaale iska arag waxyara saas ku dhex gelinayaa oodkaci iyo tuntii waxyaaba kala dib aan uga soo dari doonaa insha Allah markuu si fiican u soo bislaan rabo cusbada laakiin kala dhawaan ku dari doonaa saan markuu u soo shiilmo waa u jeedin si fiican u soo karay biyo dhanna ma ka tufaayo oodkac markaa saa u soo bisid caan dhan ma tufaayo dhacaankiisu ku shiilmaya oodkacda saliido qabo ku shubtid maanta oo dhan aad sugtid ilaa uu dhacaan ka tufo wax alla wixii ku jira nuxura way baxa ayaanba dabka saacunayo qashinkaas uu soo tufaayo waa ka bixiyaa idinkana iska bixi insha Allah hadda waxaan kusoo daray cusbadii waxaan kusoo daray filfishi waxaan kaloo kusoo darsanayaa heelka iyo joyska isku shiidan heelka asagoo noolna waa ku ridan doonaa dhowr xabo marka xoogaa yar ii soo karo laakiin waan ka bixin doonaa because caraf subagan xitaa maasha Allah aad u caraf badan yahay saasa u soo shiilaya ilaa uu ka soo baxo diyaar uu ka soo noqdo oodkaca sidaan u suubsado insha Allah waxaan kaloo ku darayaa timir aan soo burburiyay qaybta kale laakiin idama tusin videoga iga yaraaday timir aan soo xashay aan qaybta kale ku soo daray laakiin picture-kan ma iigu jiro waa idinka raali gelinaya insha Allah saas uu soo baxay hadda uu dhow yahay wixii qashin ah dhanna waan ka soo guray uu soo tufaa hilibka qashin badan uu tufaaya wuxuu soo tufayaa wax oo gaduud oo wasaq camal hilibka marka la karinaayana waa laga bixiyaa marka la shiilayana waa laga bixiyaa insha Allah saas hadda hilibkeena diyaar ku yahay weelka ugu talagalay aan ku soo shubanaya dhaladaas aan ku soo guranaya daboolka leh oodkacana markaa guraysid oo markaa shiishid subaga kaaga koreeyo insha Allah hadaa subaga uu ka hoos maro hilibkaas uu ka halaabi karaa hadduu waqti badan ma oolaayo marka subaga ka kormariyo insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin oodkaceeni saas uu soo baxay yaa u jeedin suu u qurux badan yahay jeelaac haddana safti walaahi aad u macaan insha Allah idinkana ka faa'iideysta casriyo wanaagsan waa qofka martiyo ku imaado xaajigaaga adiga xataa canjeerada ku cuni kartaa carruurtaada ka heli doonaa insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotiin waan kaga mahad celinaya